Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan ka sheekeyn doonaa filim aad u xiiso badan oo lagu magacaabo Burning Bright. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo booqato, fadlan nagu soo biiro subscribe saar channelka. Una sii share garay saaxiibada si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo kale ah. Mahadsanid. Filimka wuxuu ku bilaabanaa nin lagu magacaabo John Gavin ayaa wuxuu go'aan ku gaaraa lacagtii ay ka dhimatay xaaskiisa inuu ku samaysto beer xayawaanaad oo soo iibsado xayawaano tiro badan oo ku jiro shabeel aad u weyn. Isla markaana wuxuu go'aan ku gaaraa inuu qorshihiisa idilka qariyo wiilka iyo gabadha ay ka dhimatay xaaskiisa oo lagu kala magacaabo Kelly iyo Tom. Kadib John wuxuu gaarigiisa la soo dhaqaaqay xagga gurigiisa si uu u sameeyo beer xayawaan oo loo soo daawasho tago. Dhanka kale, Kelly waxay walaalkeed ka yar Tom kula sugan tahay isbitaalka si Tom loogu sameeyo baaritaan dheeraad ah maadaama uu qabo cudurka autism-ka. Kelly waxay xiriir aad u wanaagsan la leedahay walaalkeed ka yar ee Tom. Waxyaabaha uu jecel yahayna waxay isku daydaa inay isla markiiba siiso ama ay u keento si ay u bixiso daaweynta walaalkeed. Doctoressadu waxay Kelly u sheegaysaa in kaarka ay dhiibtay uusan lacag ku jirin. Markaas kadibna waxay wacaysaa maamulaha bangiga, isagana wuxuu u sheegaa in account-keeda uusan ku jirin wax lacag ah wixii u dambeeyay oo la baxay adeerkeed. Dhanka kale, Johnny wuxuu xayawaanaadkii u wadeegaynayaa gurigiisa sidii aan hore u soo sheegnay si uu u sameeyo beer xayawaanaad. Waxaa caawinaya rag saaxiibadiisa si ay ula sameeyaan beerta xayawaanaadka. Intii ay socotay dejinta xayawaanaadka, shabeelka wuxuu mid ka mid ah raggii la shaqeynaya Johnny u geysanaa dhaawac daran, wuxuuna ka goosanaa faraha. Kadib Johnny wuxuu shaqo gelinayaa shaqaalihii uu keensaday guriga si ay u dhisaan beerta xayawaanaadka una adkeeyaan albaabada iyo daaqadaha guriga si waxyeelada xayawaanaadka looga gaanshaanto. Kadib Kelly waxay ka soo laabanaysaa isbitaalka, waxayna si toos ah u aadaysaa adeerkeed si ay u weydiiso su'aalo ku saabsan lacagtii bangiga ku jirtay halkii uu geeyay iyo wuxuu ku isticmaalay intaba. Johnny wuxuu Kelly ugu jawaabaa in lacagtii bangiga ku jirtay uu ku kharash gareeyay xayawaanaadkan si uu u sameeyo beer xayawaanaad oo loo soo dalxiis tago si ay uga helaan lacag. Kadib waxaa muran aad u xooggan dhexmarayo Kelly iyo adeerkeed, waxayna Kelly ku xandacoonaysaa in lacagtan hooyadeed ay iyaga kaga dhimatay ayna xaq u lahaayeen inay isticmaalaan. Isagana wuxuu ku candoonaa in iyaga aysan haysan wax hubanti ah ama wax saxiix ah oo ay ku sheegan karaan lacagtan. Kadib Kelly waxaa telefoon uga imaanayo xafiiska jaamacaddii ay rabtay inay ku biirto, waxaana loo sheegayaa inay ku guuldareysatay inay iska bixiso lacagtii isdiiwaangelinta, sidaa darteedna laga saarayo liiska ardaydii heshay scholarship-ka oo iyada ka mid ahayd. Murugtaan haysta darteed, Kelly waxay qaanadeeda kaga soo tagaysaa moobilkeeda, taasoo saameyn ku yeelan doonta sheekada qabsan doonta iyadii walaalkeed. Isla habeenkaas, Kelly waxay ku riyoonaysaa riyo aad u xun, taasoo ah iyadoo dilaysa walaalkeed ka yar Tom, waxayna si naxdin leh kaga soo toosaysaa hurdada. Kadib waxay ka soo toosaysaa sariirta, waxayna aadaysaa dhanka qolkii uu jiifay walaalkeed ka yar si ay u fiiriso xaaladdiisa iyo sida uu yahay. Kadib waxay si toos ah u soo aadaysaa dhankaas kushiinka si ay biyo u cabto, hawo u qaadato, nafisna u dareento. Laakiin waxay arkaysaa waraaq yar oo ku dheggan talaajada, taasoo adeerkeed uu ku sheegayo inuu aaday banaanka uuna adeega doontay bakhaarka. Waxay haraadkii hay kala duldhacaysaa talaajada, waxayna kala soo baxaysaa hal caagad, waxayna bilaabaysaa inay biyaha cabto. Qadar kadibna waxay dareemaysaa shanqar. Waxay u soo weecanaysaa dhankaas jaranjarada, waxayna arkaysaa shabeel hoos marayo jaranjarada iyada ay saaran tahay. Waxay u baxaysaa gadaal, waxayna xiranaysaa albaabka, waxayna dabinaysaa laambada ku jirta qolka. Waxayna isku dayaysaa inay raadiso meel ay ka baxdo, waxayna eegaysaa daaqadda, laakiin waxay ogaanaysaa daaqadda in mar hore la farsameeyay oo la adkeeyay. Sidoo adeerkeed u sheegana ay tahay farsamo looga gaashaamanayo xayawaanaadka la keenay guriga. Kelly waxay dadaal badan iyo juhdi badan ku bixinaysaa sidii ay u heli lahayd meel ay ka baxdo uguna tagi lahayd walaalkeeda cidlada ku ah gudaha. Kadib waxay go'aansanaysaa inay telefoon wicitaan sameyso, laakiin waxay soo xasuusanaysaa in telefoonkeeda ay kaga soo tagtay qaanada. Markaan waxay ku qasban tahay inay gaarto halkii uu telefoonkeeda yaalay, waxayna iyadoo taxadaraysa u soo degaysaa hoos si ay u dirsato telefoon. Waxay diraysaa telefoonka gargaarka degdega ah, laakiin nasiib xumo
dabeelo jira awgeed taleefanka ma u baxayo. Kadibna waxay arkaysaa shabeelkii oo hoos maraya jaranjarada ee saaran tahay. Iyadoo u dhawaaqaysa walaalkeed, waxay mar kale isku dayaysaa inay jebiso daaqadda si ay u badbaadiso nafteeda iyo nafta walaalkeed. Laakiin markii ay baabaarto walaalkeed, waxay ka weynaysaa sariirta iyo meesha uu ku ciyaari jiray oo ah teendho laga dhex daaray laambad. Markaan waxay ku khasban tahay inay hesho taleefankeedii ay ku soo ilowday qaanadda, waxayna iyadoo aad u cabsanayso si halhaleel ah u soo beegsanaysaa halkii uu yaalay taleefankeeda. Kelly waxay dareemaysaa cabsi aad u daran, mana garanayso jihada uu ka jiro shabeelka. Waxay si sahlan u helaysaa taleefankeeda, waxayna marka ugu horeysa wacaysaa taleefanka gargaarka degdegga ah, laakiin nasiib xumo uma dhacayo taleefanka. Waxay sidoo kale wacaysaa taleefanka adeerkeed Johnny, laakiin taleefankiisa lama qabanayo, isagana wuxuu iskaga caawinaa baarka halkii uu markii hore u sheegay inuu dukaamaysi u aadayo magaalada. Kelly iyadoo aad u murugsan, cid caawisana aan lahayn, waxay dhanka sare ee guriga ka dareemaysaa dhawaaq. Isla markiina waxay arkaysaa harka ama hooska shabeelka, wayna soo cararaysaa, waxayna soo beegsanaysaa dhanka qaybta sare ee guriga. Laakiin Kelly waxay dareemaysaa halis, waxayna dib ugu soo laabanaysaa qaybta hoose ee guriga. Waxayna mar kale isku dayaysaa inay jebiso albaabada alwaaxyada zaa'idka lagu daray ee guriga ku yaalay, waxayna awooddeeda oo dhan isku geynaysaa sidii ugu baxsan lahayd. Waxyar kadib waxay dareemaysaa inuu shabeelka dhankeeda u soo socdo, waxayna soo qaadanaysaa mindi iyo feero si ay ugu jebiso albaabka. Laakiin isku dayadaas oo dhan waxay noqonayaan kuwo aan miro dhal lahayn, wayna ku adkaanaysaa Kelly inay jebiso albaabka. Waxyar kadib waxay dareemaysaa in shabeelka uu soo jebinayo albaabka qolkii iyada ay ku jirtay. Waxayna mar kale isku dayaysaa inay xal keento, waxayna soo qabsanaysaa daasad, waxayna isku dayaysaa inay gudaha u gasho tubo dheer oo ku taalo qolka, waxayna hor u qaadanaysaa alaab yar iyadoo u baahneed. Tijaabo adag oo dhib badan, ugu dambeyn Kelly waxay ku guuleysanaysaa inay hore u fuusho tubada, waxayna gudaha u galaysaa tubada. Shabeelkana wuxuu gudaha u soo galaa qolkii ay ku jirtay iyada. Kelly waxay markaan ku dadaalaysaa inay yareyso dhawaaqeeda, xitaa waxay ku qasban tahay inay yareyso nafsigeeda si shabeelka uusan u maqlin. Kelly waxaa ku adkaanayo inay hore u fuusho tubada, dhididka ay dhididayso dartiis. Waxyar kadibna waxaa soo dhacaya taleefanka gargaarka degdegga ah. Shabeelkan wuxuu burburinayaa taleefanka oo dhan. Kelly waxay ku siganaysaa inay ka soo dhacdo tubadii iyada ay ku jirtay. Waxyar kadibna dhididkeeda ayaa waxa uu ku soo dhaca dhulka. Shabeelka ayaana markaas dhididkeeda arkayo, wuxuuna ku soo weeraraa halkii ay ku jirtay. Kelly markaan waxay isku dayaysaa inay hore u fuusho tubada, maadaama shabeelku ku soo siqayo gacmihiisana uu kula jiro gudaha. Kelly waxaa ka socda dhidid aad u fara badan, taas ayaana ku noqotay caqabadda ugu weyn oo ay tubada horey ugu fuuli lahayd. Dhanka kale, xajmigiisa daraaddiis, shabeelka waxaa ku adkaanayso inuu gudaha u galo tubada, halka Kellyna ay ku dadaalayso sidii ay hore ugu sii siqi lahayd. Ugu dambeyn waxay gaaraysaa bartamaadka tubada, waxayna iyadoo naftu hayso ku dul dhacaysaa qaybta sare ee guriga. Kadib markii ay cabaar nasato, waxay dhinaceeda ka arkaysaa walaalkeeda Tom, waxayna weydiinaysaa weliba iyadoo xanaaqsan halkii uu ku maqnaa. Isagana uma jawaabayo oo wuxuu ku mashquulsan yahay video games. Kadib Kelly walaalkeed waxay soo galayaan qolka internetka ee guriga, waxayna isku dayayaan inay xiriir la sameeyaan booliiska iyagoo isticmaalaya internetka. Laakiin khadka xun iyo duufaano jira awgood uma suurtagelayso inay xiriir sameeyaan. Kadib shabeelka mar kale wuxuu ku soo jebinayaa albaabka qolkii ay ku jireen.
Kaylina waxay dafaysaa walaalkeed waxayna hor u qaadanaysaa daabo si shabeelka uusan u urinin labadooda waxayna hoos galayaan sariirta. Kadib Kayli waxay isku dayaysaa inay aamusiiso walaalkeed maadaama uusan ogeyn waxa socda iyo waxa kale. Kadib shabeelka wuxuu gudaha u soo galaa qolkii ay ku jireen. Shabeelka wuxuu ku guuldareysanaa inuu uriyo Kayli walaalkeed maadaama loo isticmaalay daabo boloqoreynaysa urintiisa. Kadibna wuxuu dul fuulaa sariirtii ay ku hoos jireen Kayli walaalkeeda. Kadibna wuxuu ku soo weeraraa halkii ay ku jireen. Dadaal dheer kadibna waxay si dirqi leh kaga soo badbaadayaan shabeelka iyagoo arkaya albaab xagga dambe ka furan. Halkaas ayayna ka baxayaan iyagoo naxsan. Kadib Kayli waxay la soo cararaysaa walaalkeeda Tom. Markaan awooddeeda dhan waxay isku geynaysaa sidii ay ku jebin lahayd albaabada la xiray ee guriga. Waxayna dadaal dheer u galaysaa sidii ay ku jebin lahayd albaabada, laakiin ugu dambeyn way ku guuldareysanaysaa. Kayli markaan waxaa ku soo dhacday fikrad cusub. Waxay refrigerator ka soo bixinaysaa hilib ceeriin ah, waxayna dhex gelinaysaa kiniiniyaal sun ah, waxayna u tuuraysaa shabeelka si uu ugu dhinto. Kadib waxay arkaysaa shabeelka oo dhankeeda u soo socdo. Dib ayay u noqonaysaa wayna cararaysaa iyadoo si toos ah u aadaysa halkii uu joogo walaalkeeda Tom. Waxay walaalkeeda Tom u geynaysaa meel ammaan ah, waxayna helaysaa bir si ay hub ahaan ugu isticmaasho. Waxay galayaan meel khaanad oo kale ah, waxaana goobtaas ku soo weeraraya shabeelka. Waxay birtii ay wadatay ku jebinaysaa derbiga si ay halkaas uga baxaan. Shabeelkana wuu ku guuldareysanaa inuu soo jebiyo khaanadda. Tom oo caafimaad qaba iyo walaashiis Kayli oo lugta dhaawac ka ah waxay ka baxsanayaan goobta. Kadib Kayli waxay helaysaa rasaas, waxayna raadin u galaysaa bistooladii lagu ridi lahaa si ay iskaga difaacaan shabeelka weerarka ku ah ee guriga ugu jira. Waxay iska xiraysaa lugtii ay dhaawaca ka ahayd, waxayna arkaysaa waraaqado caddayn ah oo muujinaya in adeerkood uu nafsadooda ku galay caymis oo haddii labadooda shabeelka uu dilo hay-ado ay isaga lacag siin doonaan. Kadib Kayli waxay ogaanaysaa wax walba inuu adeerkeed ka dambeeyo, ujeedkana uu ahaa keliya in dhimashadooda uu lacag ku qaato. Waxayna ku guuleysanaysaa inay hesho bistooladii, waxayna gashanaysaa rasaastii markii hore iyada ay haysatay. Waxayna weerar ku qaadaysaa shabeelka, laakiin xabadihii ay ku tuurtay ma noqonayaan kuwo ku dhaca shabeelka oo waa ay gees marayaan. Shabeelkana markaan wuxuu si car leh u weeraraa Kayli wuuna ceersanaa. Waxay ku dhacaysaa dhulka waxayna isku dayaysaa inay shabeelka dab qabadsiiso, laakiin dabka wuu ka badbaadaa. Waxayna mar kale isku dayaysaa inay toogato, laakiin ma u suurtagelayso. Kadib Kayli rasaasta ka dhamaanayso, waxayna ku tuuraysaa shabeelka wax walba oo iyada agta hareeraheeda yaallo. Kadibna waxay isku dayaysaa inay baxsato, waxayna dagaal baan la galaysaa shabeelka. Waxayna ka baxaysaa daaqad gaar ah oo guriga lahaa, waxayna u dhaadhacaysaa banaanka. Kayli waxay arkaysaa gaari, waxayna gudaha u galaysaa gaariga waxayna isu diyaarinaysaa inay baxdo, laakiin waxay soo xasuusanaysaa walaalkeeda Tom inuu gudaha ku jiro oo ay kaga soo tagtay. Waxayna go'aansanaysaa inay dib ugu soo laabato si ay u badbaadiso walaalkeeda Tom. Kayli waxay Tom u sheegaysaa in hooyadood keligiis aysan ka dhiman, ay ka wada dhimatay. Waxayna u sheegaysaa in dhimashada hooyo ay ka xun tahay, waxayna u ballanqaadaysaa inay mar dambe ka tagi doonin. Kadib waxaa guriga dib ugu soo laabanaya isagoo qori wata Johnny Gaffney oo ah adeerka iyo ninka dhibkan oo dhan ka dambeeyay, oo isagoo aad u baqaaya isku daya inuu guriga gudaha u soo galo. Laakiin layaabkiisa wuxuu arkaa nolosha Kayli iyo Tom. Layaab ayayna ku noqonaysaa midaas oo wuxuu islahaa waxaa cuni doona shabeelka, adiguna waxaad heli doontaa lacag fara badan oo kaaga imaanayso caymiska. Kadib wuxuu hortooda ka qiranaa inuu isagu ka dambeeyay dhimashada hooyadood, beenna ay ahayd war kala faafiye ahaa inay iyadu isdishay. Sidoo kalena wuxuu caddeynaa in iyada laftirkeeda uu ku qaatay lacag caymis ah dhimashadeeda kadib. Mr. Johnny Gaffney isagoo qiranaya dambiyada uu ka galay qoyskiisa, waxaa hal mar ku soo boodayay shabeelkii, waxaana lagu hor cunaa Kayli iyo Tom hortooda. Shabeelku wuxuu cabsi aad u xooggan ku beeraa
Kelly iyo Tom wayna awoodi weynayaan in adeerkooda ay ka dhiciyaan shabeelka. Kelly iyo walaalkeed Tom waxay banaanka uga soo baxayaan gurigiisa xariirta ay ku mareen, kadibna gacmaha ayay isqabsanayaan, socodkooda ayayna sii wadanayaan. Filimkana halkaasuu ku dhammaanaa. Haddii aad ka heshay filimkan, fadlan subscribe saar channelka si aan u soo badino filimada noocan ah. Mahadsanid.